saddex xaqiiqo aad ogeyn qofka hadduu wax kasta dib u dhigto sudah in badan baan noolaan doontaa waxyaabo badan ayaa iskaga xumaanaya tukubaad waqaabka ilaahay u abuuray insaankan qofka bini'aadamka waxa diidu u joogaa in la taxaamo ilaahna xusiyo xorriyad waxaana loo abuuray qaab wax uu dooran karo laakiin marka wax uu dooranayo waxay u baahan tahay caqli iyo aqoon iyo inuu go'aan leeyahay ninkaas qofna ma dhinto isagoo wixii soo dhanba ay isugu fadhiyaan markaas oo qolata sugaya geeridii qofka bini'aadamkana wuxuu doonayo cimrigiisuna way kala dheeryihiin marka qofka muslimka waxa loo baahan yahay inuu xal lahaado oo meel dhown ka eego wax xaqiiqada labaadna waa geerida bini'aadamku dhow rumaysan yihiin geerida muslim iyo gaalba taasoo tusaale waxa ku filan inta dadka ku wareysnad oo dhanba waa dhinteen oo wax noolba waa in yar saas daraadeed inaadna maalin u dhiman doontid wax shaki ah kaagama jiro waa haddii aad waalinayn alla subxaanahu watacaala ayaa qur-aankiisa ku wuri isagoo nebi maxamed la hadlaya innaka mayitun wa innahum mayituun annagoo dhimanaysaa iyaguna khasab way dhiman doonaan kuwa kaa dambeeya kuwa ka soo horjeedana way dhiman doonaan kullu man calayha faan waxaa dunida saaran oo dhanba way dhammaan doonaan ayuu ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku wuri wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuldu afa in mitta fahum lkhaaliduun adiga horta cidaan waaritaan siinay ma jirto ayuu ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku leeyahay eedadaad u gooriyeyto iyagu miyay noolaanayaan ayuu ilaahi subxaanahu watacaala leeyahay haddii ilaahi subxaanahu watacaala nabi maxamed uu doortay oo khaaliq albashar ah oo kulley waa dhimanaysaa taas macnaheedu waxa weeye wax allaal wixii ka dambeeyana way geeriyoonayaan waa dicin noolaanayso ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu nolol siin lahaa nabigeena maxamed xarasi mudule korkiisa haatee xaqiiqada saddexaadna waxa weeye adduunyada oo dhul la marayo ama oo dhul laga tegayo adduunyadan qof kasta oo soo maray waa u dhashay markii uu dhashana waxaa la yidhi wiil ayaa ku soo kordhay rarkii ama gabadh ayaa rarkii ku soo kordhay marka dhalatana mar ayaa lagu duuduubay berito hore marka dhimatidna mara kale ayaa lagu duuduubayaa sidii shalay loo lahaa wiil ayaa dhashay ama gabadh ayaa noo dhalatay ayaana maanta la odhanayaa waa meyd in naga aasa duniyadu waxaa timi adoo mare lagu duuduubay waxaanaad ka baxday adigoo mareero kale lagu duuduubay saas daraaddeed waxan waa adduunyo oo waa la marayaa cid waaraysaana ma jirto markaad dhimatan waxaasoo dhan ka dambeeya waa la kula kaalle qof kastana wuu la kulmi doonaa rabbigii oo waa la xisaabin doonaa janno iyo naarna tii uu ka soo shaqaystay ayaa la siin doonaa sidoo kale ilaah qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fa innahu mulaaqiikum wargeerinaad ka baxsanaysaan mar una aynay la kulmaysaa haddaad xitaa xanuunsato meel kastoo dhakhtaad ka raadiso adduun waxaa haysid ku bixiso caafimaadka alle subxaanahu watacaala ayuun bahayaa ee dhakhtarkaas buu ilaahay kugu soo dhiibayaa haddii caafimaad ilaah ku qoray haddii kalena taadi ayaa ku imanaysa oo waad ka sugaysaa laakiin allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay si kastood jecdaan oo u daydaydaan inaad sii noolataan fa innahu mulaaqiikum waad kulmaysaan ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون waxaan la celinayaa caalimul ghayb wa shahaada allaha wax maqan iyo waxa joogaba ka warhaya allaha subax kasta aad samayso oo waxba ka qarsooneen hadduu waxa shay waxaad qalbiga ka samaysay yaa duu yahay waxaad ficil u samaysaba waa ilaahi og alla subxaanahu wa ta'ala quraat mooga ee fayunabbiikum bima kuntum ta'malun waxaad samaysayna inuu sheegi doonaa